ninkan qaba baahida gaarka ah wuxuu gacanta u galay kuwa gun ah oo ragnimada aan waxba ka kaseenin qabiilkana uu ku cusub yahay kuwaasi oo ku andadayay baraha bulshada iskuna dayayay inay ku caburiyaan aragtidiisa iyo hadal uu sheegay oo kaliya baabajay hadda abtiyaashiisa iyo adeeradiisa handadaad culus ayay jeediyeen kani waa muuqaal cusub hore aad u arkin si degan u daabo waxay ka hadlayaan baabajay iyo reerka uu ka dhashay kuwa hadlayay baabajayna handadayay raaligelinta soo siiyay kadib xataa handadaad u jeedinayay waxay ku tirinayeen baabajay waxa Soomaalida ay u taqaan Bontifayfka oo la mid ah kuwa ugu awoodda badan Soomaalida laakiin cawaantan ay u arkaan inay yihiin kuwa ugu liita bulshada xaqiiqda ayaka ayaa ah kuwa bulshada ugu liita si degan muuqaalkan u daabo leegtana ku qaba siina sheergalay اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرتي قالي ودين سلامي دل ايد المشي naga daawanaysan soo dhawaada waa mar kale muuqaal cusub ma taariikhayga waxa fadhiyo abtiyaashay oo yaashay adeeraday inta way wada joogan ogaaska joogo abtiyaashay joogan marka iyagu joogan aniga inaan hadlo xogaa qalad waaye waxaan ku soo dhaweynaa markooda ogaaska bismillaah rahmaan rahiim axmed cabdulqaadir axmed waxaan nahay abtigiis baasha waxa fadhiyaan waa abtiyaashiis iyo adeeryaashiis marka waxaa baryahan suuqa ku jiray in maaragtay uu yahay nin meel ilaa joogo oo aan qabiilna ka dhalin marka waxaan rabnaa inaan caddayno axmed inuu yahay nin qabiil leh reer ka dhasho mid weyn kuna tiirsan yahay salkiisana ay tahay uu yahay qabiil u xoog leh ana ahayn qof meel cidla iska joogo oo qofkii rabo wuxuu hor ka samaysan karo ku talagalo inuu maaragtay sheeg ninkii axmed cabdulqaadir axmed guri ka galo inuu asigana tiisa ku taataba xooggiisa oo ku tushanayo oo lagula xisaabtamayo taas horta waa muhiim midda labaad qof adduunka meel cidla jooga ma jiro أحمد وابيل كيني راشي سافرية أشاشي سافرية بس ملا لو ريجي إنا ما الله وتاني هاي وأنا قبيل يدت كذا لني هذا السياسة أول صعدانه أحمد إنه يهينين قبيل مقبل كذا شيء أنا وحنا بيش مرصدة وهذا بس وعبر عيان وأبو بكر وهذا سبدي وهذا فرع رسله هذا كنت رجالي ما شاء الله اوكي waxaan ii cadeynayaa aniga abtigiisaan ahay hooyadiis la dhashay baabajay waxaan ii cadeynayaa baabajay daduu leeyahay asiga iska shacbigooda ahaa jiray dadka fiidiyooga iyo waxaas jecel ma aan ahayn laakiin waxaan ka xumaanay in la yidhaahdo wuxuu yahay ma jirto qabiilkiisa la sheega diriyada warasada ayaa dhalay ninkaan أنا أبتغوا وديس ولا شيء أنا إذا أختار أسبادهم أحمد علوسه ولا شيء ما كانت لا فقط خبر يا مالي لكن أنا ليها إنه ضد لهين هذا إنه ضد ليها ضد إنه ليها هذا عجيب ودي صدوح وقارن والله أنا دافين بالله تالله يعني وانين عريان وانين إليه أباه وانين أفكيس كشف كنول وانين ضد أنا دين ما فهمت نوريش شقفتك السهر جيستنا إلى إسي وكجم تجينا والله وبالله وطلعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكن أنا وحنا يبتجي وحنا شيء ولا شيء يعني غير دلتي هو يدي عباي دلين فهذا مع أحمد علوس يا ليرا معنا كم قاعدنا أنو غير دغدغان دل يقانا أنو هذا دل يقان وما أنهن ويلكني وويل أنا نقول لنا قبل هنا أنو باش عن كتاجنا ويعدى بواش مرصدة عد بلا آدم عد حتى الله فكرته يسمى يشرته لكن أسيق أسكان إسكت له قبيلة وأنا جعلاني قبيل كنوش إسكت جعلان وضدك عني قبيلة عاد يعني واحد لأنا حين
laakiin waa dadka iska shaqtiraysto yani waxyaalahaas iska jiro dadka qabiilka aad u xiiseeya maaha. waxaa dhacday inuu yahay cidduu yahay hal la caddeeyo taasi mid muran ku jirta maaha. annagaa dhalnay wiilkayni reer dardaqanana la yihahdaa khaasatan mursade. waan islaamayaa barbaarta soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبجي ويلكين واي وانين هبر عينا عدي او حكسيدو وحاصل نقوى ظاهر نقبط وان لي كرتا لكن عدي كوحد قدبتا وفرحة جسوتا شام على الصار شام على الصار عدو الله فكبر يا عمالي عدنا كم حد قد بكري عد هدي كوحد قدبتنا حوجيدي كطشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abti habarteed xaliime maxamed kaaliya la yiraa hooyadii dhashay. annagu waxaan ka soo jeednaa abar cayno, waxaan ka soo jeednaa cayr reer ayaan la ciddi lafa ka tuugaysana ma jirto. waan islaamayaa asxaabta sharaftana. waxaan kaloo ku darsanayaa jeedii aniga waxaa dhashay walaashay aniga habartii dhashana waa naag habageedro ceera ayaan la ceera cumar wehdii reer ciyow ah xalima maxamed kaariyaa la waa caan reer kaariyo ingiriiskayna ku noosho ingiriiskiina joogta hadda barne maxamed kaari xalima maxamed kaari kulli ingiriiska joogaan waa aniga habartii dhashay wiilkayga qofka ku meeshi karto sayaroo aabiis dhintay intaas anakoo nagu dhex jiray haddoo dadal-aan aada loo maleehayana hal yimaado is arkaynaaye ciddii wax ka tabaysana waxaasaan ka tabeena hana dhaho. naagoo xooga maa jirto, qofoo dhib ku geysta maa jirto, qofoo la dagaalama maa jirto. yaa way ku dilaa $5,000 qaada iyo kubtaan saan yeela waxaad ma jirto. murusaana lahaa anaga waana la yaqaanaa 4 wajaan isticmaalaynaa anu waa iska cigir naqaanaa ninka naga taabto waa taabayna anaga. sallallahu wabaarig waa arrin saxa ay jirto. haddana waxaan ugu gudbinaynaa ogaaska mursada. hadda markuu horta waa intaasuu ku egyahay oo hadda wixii la dhehelaa waa la yiri. waxaan rabnaa maaragtay sheeg in dadku sidaa ula socdaan ciddii ninkaas baabajiya oo wax ka tabanaysa way noo soo dacwey kartaa. waxaa weeye waa laga garbaxa laakiin ma la ogolaanayo in lagu xadgudubtana iyo handadaadna waxaa waaye waa lala xisaabtamaya. aniga horta maanta ka hor ma jecleen abtiyaasheen aniga waa ka diiday jir walba tay soo wacaan ay dhahayeen ma anaga noo imaadid ma anaga noo sheegtid wax ku haysto ma anaga nala hadashid ma tolkaaga soo dhex gashid. aniga intaba waxaan u diidanaa waxay ahayd maadaama aan ahay qof afkiisa ku shaqaysanayo ma jecleen aniga qabiil iyo afaarahaas inaan magalo ma jecleen. dadka way ku wareersanaayeen aniga qabiilkan ka soo jeedo tolkayga intaba way ku wareersanaayeen. waxaan aniga ugu talagalay aniga laagama barnayn inaan qabiil waayo hebel waa saan waa inaan dhaho aniga ma layga barnayn. dhowr mar anoo game ciyaaray dad badan ay dhaheen qabiil ma lihid miya, dad badan commentiga igu soo qoray. runtii qof aan jirkiisa gubanayna ma jirto markii dadkiisa wax laga sheego. jirkayga wuu gubanayo laakiin waxaan ku adkaysanayay maadaama intaanba anigoo joogo magaaladan aan ku heli jira afkayga le wax inaan qabiil iyo waxyaabaas aniga aan ka hadlin. laakiin shalay iyo darad waxaa dhacay markaan arkay qof walbaba inuu gees iga xaganayo danta waxay igu kaliftay tolkayga iyo kabteeda inaan dhexda ugu dhex jiro aanan ka dhex bixin. saa kabtayaashay waa ii yimaadeen anoo shaqada u socdo jidka dhexdiisa igula qeeliyeen dad ma lihid miyaa, ehel ma lihid miyaa, qaraabo ma lihid miyaa, annaga mana soo raadinaysid miyaa, annaga mana nacday noo sheeg haddaan nacdo ku habaareynaa awalaaba saan ahayd si kalena sii noqotan ku habaara. aniga marka naftirkayga waa xanaaqay waxaana ku xanaaqay waxay iiga ka xanaaqeen markay damiirkayga kiciyeen aan xanaaqay. qofka inuu dad leeyahay dadkiina ogaadana way fiican tahay. ana hadda ciidan uu cagajugleynaya ma jirto, ciidan fariin gooni u dirayna ma jirto, cid aan dhahaayo haddii aad isaan yeeshay saana idin yeelaan horta ma jirto. laakiin aniga midaan idin sheegaya waxay tahay lafahan kasoo jeeda inaad ogaataan inaan wiil mursada dhalan inaan ahay 3 iyo 9 cid aanan ka baryeenin qabiil hooyada ay tahay ceer weliba anyaale ay tahay oo qof binaadan aan kaga hebaysanay aysan jirin. laakiin aniga maskiin waayo intuu saan ku ooynaay waxaas ma jiraan. aniga awood ilaahay intuu isiiyo igu filan waa haystaa. jacfar abtigay ii joogo
dhinacan khayra iga joogo cid ila hadli karta aniga ma lahan gaafo waa ii joogo ilaahay ii dhaafo saaka ugu soo horeysa wallahi abtiyaashay waxay dhaheen ma rabtaa ma ku keenina dad adiga ku ilaaliya mayaan dhaabti ana dadkaan shal iskaga dhex noolaa maanta iyagan ku noolanaa aan ku dhex noolaanaa dadka dhahayeen $5,000 aan ku dilaynaa baabajey saanan ku yeelaynana aan xoogaa arrintaa markay ay maqlaan in ay dib u gurtaan hawiye hadday iiga yihiin aniga balin hawiyaan ahay oo weliba aan ka cabsanaynin waxay keenaan waxooda kalena aan keeni karo laakiin anigaaba jeclayn qof binaad inaan ku xadgudbo mana layga barnin mana jecli wallahi hadda xataa waa ka xumahay inaan saan sameeyo laakiin abtiyaashay oo igu dhegeen oo ay dhaheen bal u caddeey inaadan dhulka ka dhalanin u caddeey in aad tahay nin 3 caddeey in qof bini'aadam usoo ku taaban kara anaga garbaaga aan taagannahay saa kuran ay igu qiiminayn la ajligooda inaan madaxayga hoos geenin aynu u sameynay arrintaas darteedaan u sameeyey weligeena hore uma sameynin marka ha la ogaado aniga ciddaan ka soo jeedo barasho wanaagsan asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وسلامتين.